beerta Baydhabo Janay oo ah goob aad loo qurxiyay waxaa magaalada Baydhabo ka hirgeliyay dhalinyaro ganacsato ah si ay qayb uga noqdaan horumarka deegaanka. beertan oo diyaarinteeda waqti badan qaatay ayaa waxay ka kooban tahay qaybo badan oo looga talagalay damaashaadka iyo dalxiiska waxaana ay ka qayb qaadanaysaa bilicda iyo horumarka deegaanka. munaasabada lagu dahfurayay beerta Baydhabo Janay waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda ganacsiga, xildhibaano, agaasimayaal guud iyo qaar ka mid ah bulshada magaalada Baydhabo. ugu horreyn waxaa munaasabada furitaanka beerta ka hadlay qaar ka mid ah maalgashadayaasha beerta waxaana ay sheegeen xilligan in la joogo waqtigii ganacsatadu ay ka qayb qaadan lahaayeen horumarka dalka. ميلون بشاعيانه عندي سر رسمي منك فرنتا بيرت بيدبا وين رجيي إن شاء الله أنتي تي بركة وتناقة وين فضاي تذكرر ديجان كان حكو جيدان أنتي مركز ودان كي يو جيدان هرمري يو كورنتيس يو كورنتيس يو نكفضو لان مقوم لهاينا بيدو دشيت إلهي باريو dad ilaahay dhaqaale siiyo dad ilaahay cilmi siiyo binaanka jara meel walba rooga way lahaa meel kasta isu roogda wadankii maalgalada intii meel kale maalgelin haytaan wadankii maalgalada saasa wadankii nabadna ka nagada horumarna ka deena isin ku noolaasan ka faa'iidaysan lam kasta oo digil marfla ama wadankan dhalada Soomaali wad nooc kasta ka hado wadankan ma haytay rajo kale qaar ka mid ah mas'uuliin iyo shacab ka soo qayb galay munaasabada oo goobta ka hadlay ayaa si aad ah u soo dhaweeyay goobtan cusub ee magaalada Baydhabo laga hirgeliyay. ganacsatada koonfur galbeed iyo dadka qurbo jooga ee koonfur galbeed wadanka dalxiiska dhisan walgeliyeen walqabad qaalana horta saas ka dhawaaqa barada laakiin digil mafleetan ki wala kordhi hal eray ida ma santa wal fayla soo badi ilaahay garabka gal ilaahay keen baraka yal eroy aylan naganay wangada weelka ma misjeelti la sheegayaan lanki business ay usina ay ku fikirnay intii usina oo lankan wala kordhi intuusa walaagas wala dhibaayan ay ka alnay. wasiirka wasaaradda ganacsiga koonfur galbeed Soomaaliya mudane Maxamed Cali Xasan ayaa sheegay inay jiraan fursado ganacsi oo badan oo loo baahan yahay in laga faa'iideysto. iyada ma siin dhalinyarada wali ka dhiirigeliyaan shaqadii qabadeen wali kale hadaa ka daydo oo barnaamijyo kale la kooyaan yoona dhiirigeliyaan insha Allah. sanadadii dambe magaalada Baydhabo waxaa laga dareemayay horumaro kala duwan oo dhinacyo walba taabanaya kuwaas oo dhammaantood ka qayb qaadanaya bilicda iyo horumarka deegaanka. Sidaas sheegay warbaahinta qaranka Soomaaliya Baydhabo.